بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كيني كان كوري وحنا يعني هبك لو قصة مينيو database كانوا قصة مينينو إن شو data دي كتبتي database كان سواء قبلنا صورة يعني إنه إن صوم وشينينو أما صورة إنه ويب سايت كا إن عشر كنا وحنا كنا إن شاء الله تعالى هبك لو قصة مينينو delete وقصة مينينو إن data دي عن دورني مركب واحد صار ميني and file another show.php, delete.php, update.php, add.php. And waxaan soo qabanaynaa index buu ahaa index aan soo qabanaynaa waxaan leenahay markaa intaasaan soo qabanaynaa inta marka halka inoo taala ama table-ka gebigiisaba inoo soo qabo waxaan tegaynaa show baan dhex dhigaynaa markaa waxaan leenahay markaa halkan waxaan leenahay if get action if is set baan markaa leenahay afwan if is set markaa haddii diyaar tahay oo ay set garaysan tahay get action haddii set garaysan tahay and get action equal ay laag tahay and show and delete ama edit kadib waxaad leedahay markaas include ama required ones oo ah update.php else if inta in laga hadana soo qaad ama idin laftigeeda soo qaad action leeyahay markaa delete waxaad inoo soo qabataa halkan delete else haddii kale waxaad inoo soo qabanaysaa markaa required ones kaas waxaad ka dhigaysaa show.php show waxaan teginaa haddaba tijaabinaa delete xaga waxaan leenahay delete page baan ku qoraynaa save garee update kan tegaynaa waxaan tegaynaa update waa kan isna waxaan ku qoraynaa markaa update page browser keenan taga daba inoo soo refresh garee iminkaas markay sidii ku qoran yahay edit marka waa inoo soo saaray update page intan ba kama sax wuxuu noo soo qaaday jadwalkii inoo soo saaray oo show baa shaqeynaya delete haddaan gujino waxa noo soo shaqeynaya delete page noo shaqeynaya waa halka waan habeynay haddaba waxaan tegaynaa kala delete hanaan sameynayna if is set get maaha iminka action maaha laakiin waa id haddii kaasi uu sidgaraysan yahay waxaad samaysaa eco get id-ga inoo taabac id-ga laftigiisa inoo taabac bay nagu noqon haddaba muxuu inoo taabacay 6 waxaad ka dhigtaa 900 wixii kolba la siiyey halkaa lagu taabaco ayuuna siinayaa waayo maadaamuu number yahay ma dhici karta inuu saas oo kale noqdo muxuu inoo taabacaya iminka waay markuu kaasoo kale iminka inoo taabaco mushkiladda imanaysaa waa maxay in numberkii uu baarayay xagga id-ga uu baarayay caadiga uu baarayay ay waxay noqonaysaa inuu number iyo dhex baaro waxaasoo kale dhex baaro iyo xuruuf
inagu taa uma baahnin waxaan u baahannahay integer keliyan u baahanay inaan sameyno marka maxaan halkan sameynaynaa inta inoo jar ama xaggan ba ka hor second int val kaasaan leenahay inoo daabac muxuu inoo sameynayaa kaasi bal u fiirso xuruuftaasaan haysanaa imika halkan wuxuu inoo daabacay 900 iyo d double g soo enter garay muxuu sameeyey markaa wuxuu ka saaray xuruuftii buu meesha ka saaray xuruuftii ayuu meesha ka saaray xuruuftii halkan way ku taala adiga arkaya laakiin halkan marka la daabacayo wuu ka saaraya wuxuu daabacayo keliya maxay numbers oo keliya ayuu daabacaya way waxaan leenahay haddaba intaa markuu sameeyey intaas imika inoo sameeyey waxaan u baahannahay haddaba inaan daabacadii aanu sameyno ama deletekii sameyno maxaan leenahay waxaan tegaynaa function.php xaggan imanaynaa kaasoo kalen haysanaa iminka kaasoo kalen yar habeysanaynaa waxaan leenahay function cusub delete data waxaan u baahannahay markaa intaas in leeg baan u baahannahay halkan inta inoo taalan u baahannahay waxbaa sii dheeraanaya mooyaane record baan u baahannahay record baan u baahnayn ba iska daaba tablekan u baahannahay iyo data tamarkan u baahannahay waxaan u baahannahay kale searching value iyo where id intaasaan u baahanay waxaan leenahay global connection intan cadigaan soo saaraynaa intaas oo kale waxaan leenahay delete query equal connection sidii caadiga ahayd baan u qoraynaa query delete from tableka adaa qoraya tpl waa yahay maxay kale waxaan leenahay markaa where maxaa la baarayaa waxaad baaraysid adaa qoraya halkan inagu markaa waxaan u baahannahay in aan baarhno id-ga id-ga aynu ku baaraynaa waxaad leedahay where id equal where id intaan baarina waa intaaba waaba intaaba laakiin intaa iminka intaan horta la samayn waa inaan sameynaa marka hore baadhis waa inaan sameynaa baadhis waa inaan sameynaa aan hubinaa waxan in maxay hayto la hubinayo waan change ku sameynaa marka hore search waan sameynaa marka hore waxaan leenahay markaa search data to delete equal sidii caadiga ahayd baan sameyneynaa intaasoo kale weeyaan xaggan waxaan leenahay xaggan all baan ka dhiganaa waayo all baan u baahannahay from tablekii where kadib waxaan leenahay waxaad kusii dartaa where id equal where marka waxaan leenahay if haddii kaimkan haysano search data kaimkaan search garaynaan baadhnay haddii num rowskiisu uu ka weyn yahay eber waxaad inoo sameynaysaa maxay daatada inoo soo dhilid gale else
echo sorry there's no data to delete. intaa kadib waxaad sameynaysaa markaa connectionka close inoo sii. connectionkeena waxaad inoo siisaa close inoo sii. daatadii inoo baadhaya kadib hadduu daatadaa helo wuxuuna siinaya delete inoo siinayaa. marka deletekii markuu dhammaystiro saasay ku dhacaysaa. waxaan u baahanay magaca tableka iyo ID-ga inaan helno bes intaas baan u baahanay. inoo soo qaad haddaba halkan waxaan leenahay tegaynaa delete. halkan waxaan leenahay markaa u fiirso tableka magaciisa muxuu ahaa waxaa section. ID-gana muxuu ahaa ID-ga muxuu noqonayay intaas weeyaan. bes waaba intaaba. hagan ka xabada ka masax meesha. hubi data and data delete data bay ahayd. delete my config buu ahaa mise functions buu ahaa. delete halkaas data maaha waa delete data. delete data delete ka tag waa kaa delete data. marka hore wuxuu hubinayaa inuu sadgaraysan yahay ID-gu. ID-ga markaas waan isan u hubinno waxaan sameynaynaa haddaba halkan interval inoo tago haddaba halkan waxaan siinay numberkaasaan siinay waxaan inoo delete garaa. wuxuu ii cannot use is set on the result expression expression nested line 1 me if is set kaaba ka saar waayahay. inoo taga daba soo dhigay des hagan data ma jirto buu yidhi waayo numberkan ma garanayo. hagan local host hadduu baan u tagno datadiina sectionkii php my admin waayahay wuxuu ahaa baro. haggana wuxuu ahaa section 3 baa inoogu jiraa 6 iyo 21 iyo 22 saddexdaas inoogu jiraa. markaa saddexdaa waxaan ahayn ma qaadanayo. tusaale ahaan baan eegeynaa 99 baan ku eegnaa wuu diiday 6 baan ku eegnaa haddaba number 6 baan ku eegnaa halkan. xaggaas waxaan ka dhignaa number 6 baan ka dhignaa. aye wuxuu sameeyey uu qaadan maranaya browser duunahno number 6 waa maxay waa xadiid. aye xadiid meemanka markaa uu delete gareeyay. markaa daatadeeni saas ayuu ku delete gareeyay. waad sii samayn karaysaa qaab yaroo hubin baad sii samayn karaysaa oo isleed doonaysid inaad kusoo hubisid. tusaale ahaan oo kale waxaad leedahay halkan yar habeyneynaa waxaan leenahay saas ka dhig inoo xidhintan kan haddana dub inoogu furo and if
xaggan waxaan sameyneynaa div baan sameyneynaa div class baan siineynaa waxaan siineynaaba style aan yar habeyneynaa style baan siineynaa waxaan leenahay background color waxaanu ka dhigtaaba green text ama kalarka cadi waxaa ka dhigtaa kalarka waxaad ka dhigtaa baan leenahay fff text align waxaa ka dhigtaa isna center xaggaa red ka dhig waxaan leenahay ma hubtaa in aad rabtid tirtiridda record number xagaas ku daawacaysaa markaa waxaan leenahay halkan eco int val get id yes iyo no baad sii kala siinaysaa ka waxaad leedahay halkan yes iyo no baad sii kala siinaysaa halkan waxaad leedahay input waxaan siinaa text halkan my input waa submit value waa yes if is set magaciisa muxuu ahaa halkan magac baan u bixinaynaa name waxaan leenahay yes post numberkiisu maxaa yahay yes yahay haddii kaasan helno waxaad sameynaysaa markaa kaa inoo samee bes waaba intaaba hadduu kaasi saas yahay oo sax yahay intaaba inoo samee bes waaba intaaba aan kusoo noqono ma hubtaa inaad rabtid tirtiridda record number 6 yes haddaad tiraahdid fariintii kale kusoo saaraya haddii kalena waxaan sameyneynaa 999 okay yes baa tidhi ma jirto buu ku yidhi waxaan ka dhigaynaa markaa halkan numberka 22 waa kaa ka dhig 22 yes name yes this is bold yes kan soo sameynay id sax weeyaan kana waa sax waxaan markaa nidhi halkan intval get okay sax weeyaan submit name waad garanaysaa sababta wuxuu diidayo halkan wuxuu doonayaa form actionkiisu waxa weeyaan php server self php methodkuna waxa weeyaan post
intaa markaan sameynay kadib waxaan sameynaynaa haddaba intan gebigeedaba yesta iyo intaaba soo qaado halkan dhexkeen sooba intaaba taasuu markii hore diidanaa tirtiraysaa buu yidhi yes baan nidhi forbidden php kanba ka saarba meesha gebigiisaba php selfta ka saar meesha gebigeedaba waxaad siisaaba calaamadaaba sii ama ka saarba isaga laftiisa ama index u dhex index dot php ama intaaba yes u ka saarin maxay noo soo kale delete haddana yes kii hore u ka saaray 22 yes wuxuu diidayaa index uu diidayaa marka waxaan leenahay halkan inoo soo noqo halkan waxaad keentaa tirahdaa php self inoo soo qabanaya server self waa kan php self using sir wadaarinayun wax kale ma aha kan delete baan leenahay ma hubtaa yes baan nidhi kusoo noqo haddana yes baan haddana sorry there's no delete data delete oo ay data maba jirtaba sorry fisha waa kan xagga inoo keen culumul quraan soo ma ahayn browser de waxaa kasta culumul quraan oo kaliya imika ku jira waxaan tegaynaa halkan cafwan waxaan leenahay delete ma hubtaa buu yidhi 22 oon delete garaynay xagga inoo tag haddaba soo refresh garee wax data meesha ma taalo waayo wixiiba uu delete gareeyay saddexdiiba saasuu ku delete gareeyay adiga arkay iminka saddexdiiba uu delete gareeyay marka saasan akhriga kusoo sameynay waxaan nidhi halkan set hadduu set garaysan yahay id form baan soo sameynay marka formkii waxaan ku dhex sameynay su-aal baan weydiinaynaa qofkaan leenahay waad u baahantahin ma hubtaa inaad delete garaynaysid yes hadduu yidhahda uu delete garaynaya markiiba shaqada intaasaa soconaysa delete data section baa laga soo qabanaya tableka la yidhahdo waxaa la baarayana waa inval una fiirso qaabkan iminka u qornay iyo qaabkii hore aad u isticmaali jirtay gebigeedu halkan inagu jiraan functions.php taasay nagu jirtaa gebigeedu waa intaa weeyaan maxaa wixii su-aalaad haysidna waad soo weydiin kartaa commentka kusoo qori karaysa insha allahu tacaala saasi ka faa'iidaysi wacan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu